السلام عليكم waxaan rajeynayaa inaad fiican tahay meel walba iga daawanaysid hadda maanta waxaan ka hadlayaa sidaad ku rumaysaa riyadaada riyada ma aha riyadii jiifka ma aha maxay la riyada jiifka waxay u baahan tahay marka hore in la seexdo si aad u riyootid manahan waxaad adigu dooran kartid riyada jiifka ee waxaan ka hadlayaa waxay tahay riyada soo jeedka ma jirto dunidan dusheeda qof hal riyo leh qof walba wuxuu leeyahay riyooyin badan iyo rajooyin badan hadafyo badan ama yoolal badan haddii ay qof walba ay lahaan lahaa hal riyo hal rajo hal yool ama hal hadaf wuu rumayn lahaa si walba uu weyn yahay mar buu gaari lahaa laakiin markaad hal hadaf samaysatid ama hal yool aad samaysatid kaasiya waxa usii kala baxayaa laamo badan oo waaweyn laan walbana ay leedahay caleen gooniya ama midho ama ubaxyo hadaf walba riyo walba ama yool kastaana wuxuu u baahan yahay qorshayn nidaamin jihayn iyo kormeere intaas waxaa dheer waqti dadaal iyo duco inaad ku ladhid riyadu sideedaba bilow bay leedahay ee dhammaad ma lahan waxaa la yidhaahdaa soomaalidu ku mahmahdaa nin dhintay waxbuu damacsanaa waa run qof dhintay waxbuu damacsanaa mar walba ood riyo rumaysid aad lahayd oo ka mid a riyooyinkaaga ka mid a aada rumaysid ama yoolashaada ka mid a aada rumaysid waxaad yeelanaysaa yool aan ahayn kuwii aad horey u rumaysay ama kii aad rumaysay mid aan ahayn baad horey u yeelanaysaa mar walbood wax baratid waxaad ogaanaysaa jahligaaga dib baanad cilmiga u raadsanaysaa mar walbood wax baratid waxaa siyaadayaa baahida aad u qabtid barashada cilmiga waxaad ogaanaysaa inaad jahli ku jirtay qur-aanka marka la baranayo maxaa looga bilaabaa hoos oon kor looga bilaabin waa in hawsha hayinka aan layliga loo dhiibin haddii kale wuu ku wareerayaa maxaa yeelay qur-aanka baqra marka laga soo bilaabo iyo kor laga soo bilaabo baqra kaliya halkaas suurad baa waxay tahay laba jus iyo badh marka qof layli ah oo cusub oo bilow ah marka looga soo bilaabo baqra oo weliba waxaa ku jirta aayadda qur-aanka ugu dheer oo hal bog kaliya waxaa ah hal aayad baa waxay tahay bog kaliya marka qof cusub oon qur-aankii garanaynin haddii looga bilaabo baqra wuu ku wareerayaa waxaa la yidhaahdaa alif kuu hagaagaa albaqra ku gaadhsiiyaa marka waa inuu ka bilaabo hoos waa inuu ka bilaabo faatixada xataa ma aha qur-aanku wuxuu ku qoran yahay luuqadda carabiga marka qofka xarfaha luuqadda carabiga ama alifbeetada luuqadda carabiga marka hore waa in la baro asaaska waa in laga soo dhiso alif kuu hagaagaa albaqra ku gaadhsiiya marka qofku uu kasoo bilaabo alifka kasoo bilaabo oo allahu akbarta dhigto oo fartiisa ku qoran karaya higaadii iyo qoraalkii uu barto buu kor u socon karaya marka baqrana waxaa kasoo bilaabi kara qof mar hore qur-aanka soo maray aan ku cusbayn hadeertan haddaad doonaysid sidoo kale inaad dejisid tusaale yaroo kale haddaad doonaysid inaad dejisid oo lagu dhaho deji gaari dhan oo cusbo ah ama milix ah gaariga dhan haddii hal mar dusha lagaa saaro ama aad damacdo gaariga cusbada saaran oo dhan inaad hal mar dejisid dusha lagaa saaro korka lagaaga soo daadiyo nafta dhulka la gaari maysid laakiin haddii aad yaryarayso ood kiishba mar la turunturotood qaado waxaa hubaala inaad gaarigaas aad dhammaynaysid intay doonto ha kugu qaadato waqti laakiin gaarigaas cusbada saaran inaad ka dejinaysid haddiise intaad meel fadhiisatid aad ka fikirtid kaliya sideed ku dejisaa ma waxaad doonataa wiish kuu dallacaa waxa saaran oo dhan oo halmar kaa dejiya madad baad u yeelataa waxaa laga yaabaa inay kaa qaadato waqti badan marka hadafkaaga ama riyadaada ama yoolka aad nolosha ka leedahay waa in aad yaryaraysid waxaan tusaalayaasha badan usoo qaadayo inaan si yar wax kuu fahamsiiyo ama si aad ku fahmi karayso aan kuu fahamsiiyo hadafyada nolosha aad ka leedahay yoolasha aad ka leedahay riyooyinka nolosha aad ka leedahay waa inaad yaryaraysid markaad yaryaraysid eed mid rumaysid baa waxay kuu suurtagelinaysaa ku labaadna inaad rumaysid ku saddexaad inaad rumaysid sidaa aad ugu socotid jaranjarta marka kuugu horeysa eed fuulaysid weliga iyo allaha qof aan jaranjar horey usoo fuulin tallaabada koowaad markuu qaado hal jaranjar buu fuulayaa laba jaranjarta labaad buu saarayaa ta saddexaad buu lugta saarayaa ma yaqaano wuxuu ka baqayaa haddii uu ku ordo ama laba jaranjar uu ka boodo ama jaranjar ka boodo inuu ku dhaco oo wax ku noqdo laakiin markaad ilaa 10 jaranjar sidaa ku socotid eed ogaatid maskaxdaadu yaqiinsata inaadan dhacaynin waxaad bilaabaysaa 2 jaranjar iyo 3 jaranjarba hal mar inaad ka tallaabsan karayso ood ka boodi karayso maxaa yeelay wax walba marka kuugu horeysa way adag yihiin kufitaanka marka hore baad kala kulantaa gadaal dambe guusha ilmo yar markaad ahayd ee socod baranaysay marxalado badan buu ilmuhu maraa marka uu dhasho marka ugu horeysa inaad bilowdid inaad iska din kartid
iskadiskaasi uu dhib kugu yahay maalmaha dambe aad la qabsatid bilowdid inaad fadhiisatid markaad fadhiisatid aad gurguuratid maya xoogaa gurguuradkaasna aad dhib kala kulantid fadhiisatid fadhigaasna maalin markii lagu fadhiisiiyo dhacdid nabarro badan kusoo gaaraan dakharo badan ku gaaraan inaad marka dambe iskala qabsatid bilowdid inaad istaagtid in badan markaad istaagtidna aad dhacdid oo dhulka dib ugu noqotid haddana waxaad bilaabaysaa tallaabooyin yaryar inaad qaadid hal tallaabo ama laba tallaabo inaad qaadid halkaa tallaabo ama labada tallaabo eed qaadaysid maalmaha hore dhan waad la kufkufaysaa waad daalaysaa laakiin ma quusta ilmaha yari horey buu u socdaa taasi waxay caddayn u tahay inaad ka guulaysatay marxaladaha nolosha ka mid a marka sidaa marxaladda iyada markaad dib u fiirisid ama ilmo yar hortaada oo aad ku aragtid oo dhacdhacaya aad ogaatid mar un marxaladda inaad soo martay ka gudubtay ood ka guulaysatay baad riyooyinkaaga ama yoolashaada faraha badan ama hadafyadaada faraha badan waxaa doontaba ugu wac aad uga guulaysan doontaa maalin maalmaha ka mid a ay u noqon doonaan tagtadaada weliba noocyadii ugu quruxda badnaa ay abid kusoo maraan dad waxaa jira walaaca iyo walwalka u saaxiib ah oon qaadan karin go-aan markay qaataan markaba waxay bilaabaan inay laba bogleeyaan laba bogleyntuna ma aha wax guul lagu gaaro abid horeyna loogu gaaray haddana lagu gaarayo laguna gaari doono mustaqbalka ama timaadada markaad qorshe aad hadaf samaysatid ama aad riyo leedahay qorshe samayso sidaad ku gaari lahayd kaasoon waqti badan aadan ku luminin fikir badan aadan ku luminin qorshe samayso sidaad ku gaari lahayd go-aanso hadafkan inaad gaaraysid rabbi talada u dhiibo adigu ha dhexgelin tafaasiisha iyo faahfaahin dheeraada ha dhexgelin maxaa yeelay muhiimadaadu waxay tahay hadafka iyo natiijada riyada iyo natiijada riyada aad leedahay iyo natiijada aad heli doontid marka aad riyada aad ficil raacisid aad ku dhaqaaqdid natiijada aad heli doontid tusaale ahaan haddii adigu aad leedahay dadka qaar xataa siday u dhexgalayaan tafaasiil ama faahfaahin dheeraada sida ay u dhexgalayaan wax kasta ay doonayaan iyagu siday u qorshaystaan inuu u dhaco adigu sida aad wax u qorshaysatid inta badan waxba uma dhacaan 90% ama 80% uma dhacaan sida adigu aad wax u qorshaysatid laakiin markaad hadaf leedahay hadafkaagu uu yahay mararka qaar dadku markay ilaahay wax weydiisanayaan xataa waxay dhexgalaan faahfaahin dheeraada waxay dhahaan ilaahu rabbi raxmaanow qof baa laga yaabaa inuu ku ducaysto ilaahay weydiisto ilaahu waxaan doonayaa inaad siiso 1 milyan lacag 1 milyan oo cirka iiga soo rido laastii ku xidhan bacmadow aad dadka ka qarisa aad iigu duubtid kadibna kartoon sida takeawayga cuntada loogu soo qaato aad iigu duubtid cirka iiga soo dhaxda qolkayga jiifka ku soo dhacda sariirta madaxeeda ku soo dhacda shanqad aan sameynina markay dhacayso jug aan dhihina tartiib dhaxda albaabku waqti uu ii xidhan yahay oo habeen tahay nalku uu ii dansan yahay banaanka ay ka jirto gudcur agaaraa dam ah oo waxba la arkaynin waqtiga iyada 1 milyan aan helaa wuxuu dhexgalayaa faahfaahin dheer qofkaasi adigu waxaad u baahan tahay waxay tahay 1 milyan oo dollar 1 milyan oo dollar markaad doonaysid waa hadafka ama yoolka ama riyada aad leedahay natiijadu waxay tahay helitaanka hadafka riyada yoolka waxa aad doonaysid natiijada 1 milyan oo dollar inaad heshid wadadaad ku helaysid inay qurux badan tahay way fiican tahay laakiin adigu ha dhexgelin tafaasiisha iyo faahfaahinta ha dhexgelin wuxuusan rabbi kuu qorin ama uusan kuu qorshaynin dunidan dusheeda kama dhacaan way fiican tahay qofku inuu wax qorshaysto waxyaabaha ay weliba maskaxda wax ku qaadata waxaa ka mid inaad wax qorshaysatid ood wax u cadaysid nafta ama maskaxdaada aad wax u cadaysid laakiin taasi kama dhignaa waqtigaaga oo dhan inaad ku lumisid inaad wax qorshe dejin ama sideen ku bilaabaa ama halkeen ka qabtaa halkee ku habboon maanta dhan wahsi ood iska barraaqoynaato dhulka iska fadhidin taas laguma gaadha meel ma jirto waddo la isku waafaqsan yahay in aad ku gaari kartid rumaynta riyadaada haddii ay jirto 2 qof oo walaalo ama 2 qof oo saaxiiba aad isugu dhow labadaa qof ay sida 2 mataano ay isku yihiin hal hadaf bayna wada leeyihiin dadaal badan bay bixiyaan way isla nool yihiin meel bay ku wada nool yihiin waxbay wadaagaan wax kastay wadaagaan labadii qof maalmaha ka mid haddii ay rumeeyaan hadafka ama riyada ay leeyihiin haddii ay u rumowdo waxaad ogaataa inaysan labaduba u qaadin isku wado iyagoo wax badan ka sinaa 2 qof oo isku meel ku nool saaxiiba aad isugu dhow wax badan wadaaga ay ahaayeen haddana aysan isku wado u marin marka ma ay jirto wax wada ama dhaba oo la isku waafaqsan yahay inaad ku rumayn kartid riyadaada qof walba wuxuu u maraa wado gooniya tuulo yar haddaad u socotid hadeertan tuulada aadan qaadin dhabaha weyne caadiga ee tuulada ku geynaya aadan qaadin
eed qarda jeex iska qaadid waad soo lumaysaa waqti badan inay kaa qaadataa laga yaabaa maalmo iyo muddo doonto bilba aad hawdka iskaga jirto laakiin marka dambe waxaad imanaysaa tuulada doonaysay qof walba oo qarda jeex soo qaada oo dhabahan caadiga ee la yaqaanay aan qaadin kama dhigna adigu wadadaad qaaday inuu qaaday waxa laga yaabaa inuu ka leexdo wadooyin kale aad isagu iska samaystay iska soo qaadayo soo u lulumaya markii dambe uu tuulada ku yimid marka ma jirto wada la isku waafaqsan yahay ha isdhihin weligaa haddii aad riya leedahay way jiraan dad badan oo dunidan dusheeda aad riyo ka midaysan tihiin hadaf aad ka midaysan tihiin yool aad ka midaysan tihiin wax walba oo adigu rabtid ku magacaabo laakiin aad jirto isku jiha aad u socotaan laakiin waxaad ogaataa dadkaasi isku wado isku xawaara ma tihidin isku wadana ma tihidin wax badan baad ku kala tagsan tihiin adigu waxaa tahay qof ka duwan dhammaan dadka kaleeto waa laga yaabaa wadadaaduna inay ka duwanaato dhammaan dadka kaleeto ha sugin marka aad riyo leedahay aad qorshe leedahay aad hadaf leedahay ha sugin isbuuc cusub bil cusub sanad cusub dad waxaad maqlaysaa ku leh maanta waa arbaco sabtida marka la gaaro baan bilaabayaa oo isbuuca cusub bilowda baan daacad noqonayaa oon aniguba ka mid ahaan jiray waqti hore hadda waan fiicana alxamdulilah haddaad tahay dadka wax dib dhigtaa wahsiga badan iska baraaq weyn dhulkiiya iyagu xidhiidh dheer uu ka dhexeeyeen dhulkaba ka dhaqaaqina ka kicin waxaan ku dhihi lahaa ha sugin waqti uma baahnid inaad sugtid haddii aad doonaysid inaad wax qabatid isla waqtiga isla ilbiriqsiga ku dhaqaaq oo samee halkan haddaan isla soo gaarnay ood dhammaysatay muuqaalkan maanta sheeka maaha waa muuqaal aqoon guud ah oon kaga hadlayay rumaynta sidaad ku rumayn kartaa riyadaada su-aashaa dad badan baa isweydiiya marka uu qof isweydiiyo sidaad ku rumayn kartaa riyadaadana waxay la noqotaa wax aada u weyn su-aal xayiirta oo u raadiyo jawaab marka waxaan isku dayay inaan wixii iiga aadan aan ka dhaho sidaad ku rumayn kartaa riyadaada oon aniguba ahay dad ka mid a dadka dunidan ku nool ee leh riyooyin badan hal riyo ma aha riyooyin badan baan leeyahay mid walbana waxaa laga yaabaa inay igu qaadato waqti badan dadaal badan inaan geliyo iyadoon ducadu meesha ka marnayn marka haddii halkan aan isla soo gaarnay waan kaaga mahad celinayaa muuqaalkan haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya ama aad jeceshahay channelkan inaad ka aragtid qaybta hoose ee faallada noogu reeb fadlan share dheh oo la wadaag asxaabtaada muuqaalkan si qof u baahan su-aashan ay in badan xayiirtay uu u helo jawaabteedii muuqaalkan muuqaalo badan oo la xidhiidha oo sideed ku rumayn kartaa riyadaada mowduucyo xidhiidh la leh waxaan idinku reebayaa qaybta hoose insha allah waa inoo muuqaalka kan xiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu